kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkeena waxa ugu waaweyn fanaanka caanka ah ee Sharma Boy oo lagu xiray magaalada Garowe iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya xarigiisa qarax xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay qaraxaasi ayaan idin hayaa ra'iisul wasaare Rooble oo kulan qada sharaf ah maanta Muqdisho ugu sameeyay madaxda maamul goboleedyada xilli shalay la soo gabagabeeyay shirka arrimaha doorashooyinka Mareykanka oo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada faray hal arin kadib heshiiskii doorashada ee shalay lagu saxiixay Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo war ka soo saaray caruurta tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea iyo wasiir ka tirsan dawladda Sweden oo ballanqaad u sameeyay maamulka gobolka Banaadir intaasi waa qodobada ugu waaweyn wararka xilligan oo idin haya caasimada TV iminkana u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan intaan warkeena gudagelin subscribe saar YouTube-keena furo gambaleelka si aad u hesho wararkaan halkan ku soo gudbino waa Jimco 28 May 2022 aynu ku bilowno warkeena ciidamada booliska magaalada Garowe ayaa xabsiga u taxaabay fanaanka caanka ah ee Sharmaake Cabdinaasir oo loo garan og yahay Sharma Boy kadib markii maanta uu shil ku galay duleedka magaaladaasi shilka ayaa dhacay kadib markii uu rogmaday gaari uu waday Sharma Boy kaasi oo sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawac Sharma Boy ayaa loo haystaa in uu mas'uul ka yahay shilkaasi gaari maadaama uu wada ka ahaa gaarigaasi oo ay saarnaayeen koox fanaaniin ah gaariga oo ahaa nooca raaxada ah ayaa ku qalibmay deegaanka Buurawadal oo waqooyi kaga beegan magaalada Garowe halkaasi oo ay ku dhimatay gabar lagu magacaabo Saciido Jaamac Mire iyo dhaawaca Cabdinaasir Shaalle gaashaanle sare Maxamed Jaamac Aadan oo ah taliyaha ciidanka booliska gobolka Nugaal ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay isagoo xaqiijiyay xariga fanaanka kuna gaabsaday inay dhawaan jawaab degdeg ah ka soo saari doonaan baaritaanka kiiska wararka ayaa intaasi ku sii daraya in Sharma Boy uu safarka ku wehelinayo saaxiibkiisa Maslax Mideeye oo muddooyinkii dambe si wadajir ah u qabanayay bandhig faneedyada shilka ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu fanaan Sharma Boy u tagay caasimada Puntland ee Garowe sidii ay ugu qaban lahaayeen bandhig faneed ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta qada sharaf mahad celin ah u sameeyay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kadib shirkii guusha ku soo dhamaaday ee golaha wadatashiga qaran qada sharafta uu ra'iisul wasaare Rooble u sameeyay madaxda dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka dhacday hotel weyn oo ku yaala xeebta Liido ee degmada Cabdilcasiis ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada ayaana qadada kadib daawasho u tagay xeebta Liido oo xilligaasi ay joogeen boqolaal dadweyne ah waxa ayna madaxda gacmaha u haatiyeen shacabka damaashaadka u tagay xeebta Liido qarax geystay qasaaro xoogan ayaa maanta ka dhacay suuqa lagu iibiyo qaadka ee magaalada Baydhabo goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay miino la dhigay bartamaha suuqa oo xilligaasi ay joogeen dad fara badan oo isugu jiray ganacsatada qaadka iyo dadweyne kale ugu yaraan 3 ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 7 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo daryankiisa si xoogan looga maqlay inta badan xaafadaha magaalada Baydhabo macada ilaa hadda cid qaraxan lala beegsanayay iyadoo dadka dhaawacmay loola cararay isbitaalka magaalada Baydhabo dhowr habeen ka hor ayay ahayd markii isla suuqa qaadka lagu iibiyo ee magaalada Baydhabo lagu tuuray bambagacmeed lala beegsanayay askar suuqa qaad ka iibsanaysay ilaa 5 qof ayaana halkaasi ku dhaawacmay wali maamulka koonfur galbeed kama hadlin qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhaweynayso heshiiska ay gaareen dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada shalay oo ay taariikhdu ahayd 27 May si uu dalka u galo doorasho baarlamaan iyo mid madaxweyne Mareykanka wuxuu soo dhaweynayaa heshiiskii 17 May ee u dhaxeeyay madaxda qaranka iyo dawladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya si loogu sii ambaqaado doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 September 2020 ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa bogaadisay dadaalka uu ra'iisul wasaare Rooble ku bixiyay in heshiis laga gaaro khilaafka doorashada wuxuuna Mareykanka ugu baaqay dhinacyada heshiiska saxiixday inay ilaaliyaan qodobada lagu heshiiyay iyo tanaasulkii la sameeyay toddobaadkii uu socday wada hadalka
waxaan dhinacyada ku bogaadinaynaa inay si dhaqsi leh ugu dhaqaaqaan fulinta heshiiska maadaama doorasho nabadgelyo ah loo dhan yahay xor oo dhacda wakhtiga ugu habboon ay qayb ka qaadanayso inay Soomaaliya ku sii socoto wadadeeda nabadda iyo barwaaqada ayaa mar kale lagu yiri qoraalka ka soo baxay Mareykanka. ugu dambeyn bayaanka ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda federaalka. dhanka kale xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay heshiiska laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka ayaa soo dhaweeyay isaga oo ku baaqay in si dhaqsi ah loo hirgeliyo heshiiska la gaaray. waxaan soo dhaweynayaa heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ee ku saabsan hirgelinta qaabkii doorashada ee 17 September taasoo ka dhalatay shirkii uu isugu yeeray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric. sidoo kale xogeyaha ayaa ku booriyay dhammaan daneeyayaasha inay si dhaqsi leh u hirgeliyaan heshiiska oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaadayo qabashada hanaan doorasho oo la ogol yahay oo hufan oo aan dib u dhac dambe ku imaan. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa noqday mas'uulka kaliya ee xiritaanka shirka golaha wadatashiga qaran ku soo hadal qaaday cabashada ay qabaan qaar ka tirsan waalidiin Soomaaliyeed oo ilmahooda la sheegay in loo qaaday tababar balse aysan ka warheynin halka ay ku sugan yihiin. gudoomiyaha ayaa sheegay in maalmahan ay warbaahinta ka maqlayeen cabasho xoogan oo ka timid waalidiintaasi oo ilaa iyo hadda aan loo sheegin halka la geeyay ilmahooda iyo waqtiga ay dib u midoobi doonaan. gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa sheegay in waalidiinta cabanaya ay sheegayaan in qaarkood ilmahooda aysan arkin muddo 2 sano ah taasoo uu ku tilmaamay inay tahay wax laga xumaado oo u baahan in xal degdeg ah loo helo. madaxda sare ee dalka ayuu gudoomiyaha aqalka sare ka codsaday in ay u jawaabaan waalidiinta cabanaya ee aan caruurtooda war iyo wacaal midna ka haynin. waxa uu sheegay in haddii laga jawaabin ay ka dhalan doonto in ay sii wadaan banaanbaxyada dowladda uga soo horjeedaan. hadalka gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku soo aadaya xili maalmihii dambe ay soo xoogeysatay cabashada ka imaanaysa waalidiinta ilmahooda loo sheegay in tababar loo qaaday balse aan ilaa hadda nolol iyo geeri midna lagu haynin. ilmaha warkooda la raadinayo ayaa la rumaysan yahay in tababar ciidan loogu qaaday dalka Eritrea waxaana jirta cabsi ku aadan in qaarkood ay dhinteen qaarka kalena ay ka baxsadeen xiradii tababarka ay ku qaadanayeen ee ku taala dalkaasi waa Eritrea. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay wafdi hogaaminayay wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee dalka Sweden Ber Olson Frid oo booqasho ku jooga magaalada Muqdisho. kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen u qaabilsanaha wasaaradda arrimaha dibadda Sweden ee dhinaca Afrika safiir ku xigeenka Sweden xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir agaasimayaal ila taliyaal. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu horeen uga mahad celiyay dowladda Sweden taageerada ay la garab taagan tahay Soomaaliya isagoona dhinaca kale ugu warbixiyay horumarada ka socda caasimadda Soomaaliya arrimaha barakacayaasha shaqo abuurka dhalinyarada iyo qorshaha maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca horumarinta iyo adeegyada bulshada. wasiirka ayaa bogaadiyay horumarada muuqda ee ka socda caasimadda isagoona ku ammaanay maamulka gobolka Banaadir howlaha dib u dhis iyo midka adeegyada bulsho ee ka socda gobolka Banaadir. waxaana uu wasiirka iskaashiga iyo horumarinta caalamiga ah ee Sweden Ber Olson Frid balan qaaday inay si dhow ula shaqeyn doonaan maamulka gobolka Banaadir isla markaana ay ka taageeri doonaan dhinacyada horumarinta dib u dhiska iyo adeegyada bulshada. ugu dambeyn duqa Muqdisho ayaa waxa uu wasiirka gudoonsiiyay hadiyado isugu jira shahaado sharaf iyo dhar hidaha iyo dhaqanka Soomaaliya ah. midowga Yurub ayaa war ka soo saaray heshiiska labaad ee doorashada Soomaaliya kaasi oo shalay ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku kala saxiixdeen magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda midowga Yurub Joseph Borrell ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay tallaabo hore loo qaaday guushii uu ku soo dhamaaday wadahadaladii u dhaxeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. wuxuu intaasi ku daray muhiimadda ay leedahay inay si nabad ah ku qabsoomaan doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 September loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu dhaqaaqo fulinta doorashada.
waxaan soo dhaweynayaa dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Rooble ee wada tashiyada wax ku oolka ah ee u dhaxeeya hoggaanka federaalka iyo maamul goboleedyada. Doorashooyinka waa in lagu qabto dib u dhac la'aan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Midowga Yurub. Midowga Yurub ayaa dalbaday inay dhammaan dhinacyadu ka fogaadaan rabshadaha iyo talaabooyinka wax u dhimaya geedi socodka nabadda iyo horumarka. Midowga Yurub wuxuu diyaar u yahay inuu sii wado taageerada Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedka uu soo saaray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Midowga Yurub. waanaga inta warkii aad ka daawanayseen Caasimada TV inta ku kulmayno warceenkan oo kala ah nabadgelyo.